gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulle Cawad oo weheliyaan wasiiro iyo xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu soo dhaweeyay deegaanka la jiile ee gobolka Galgaduud. gudoomiye ku-xigeenka oo marka hore inta uu socdaal dhulka ku imaan deegaanka la jiile ayaa degmada Xaraale wuxuu kulan la qaatay ugaaska iyo odayaasha dhaqanka ayaa marka uu soo gaaray deegaanka la jiile waxa ku soo dhaweeyay maamulka deegaanka odayaasha haween iyo dhalinyaro. gudoomiyaha deegaanka la jiile Xasan Cabdiraxmaan Faarax ayaa ugu horeyntii ka hadlay goobtii soo dhaweynta. maanta waftiga meeshaan gudoomiyaha Mahad Cabdulle Cawad uu hogaaminayo in badan dadkooda laga sugayay marka ku soo dhawaada dadkiinii iyo dalkiinii iyo deegaankiinii oo aad inuu kugu baahi qaba adinkuna aad ugu baahi qabtiin. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Cabdullaahi Maxamed Xirsi iyo xildhibaan Duniye Maxamed Cali oo kamid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sidan ka sheegay goobta. soo dhaweynta diiran oo aad noo samaysaan halkan aad noogu samaysaan aad baan idinkaga mahadcelinaa deegaanka reer la jiide ama shacabka reer la jiide. waxaad ka mid tihiin deegaamadaas laga rabo taageerada hiiliyoha inay la garab istaagaan dawladdooda. waxaan idinka sugaynaa maalmo ka bacdi intaanoo geelahan wadnaa intaanoo aryahan wadnaa ku taageeraynaa gogasha dawlad goboleedka Galmudug taalla inaan uga qayb qaadano. aad iyo aad baan degmada la jiida inaan deegaanka la jiida imaado ugu faraxsanahay. gabdhihii dhalinyaradii waxbarashadii isboortiskii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay markaan dibishiinta Xaraale ka shaqaynaynay gabdhihii aan ku dhiirigelinay ciidanka booliska Soomaaliya ka mid noqdaan oo maanta saldhigyadii maamulaya oo deegaamadii ka shaqaynay oo dareyskii dawladda qabo. marka anagu marba dawladda dhaxad baan u nahay ama dawladda maamul goboleedka Galmudug halgankii dheeraan Galmudugna ka soo marna Soomaaliya taariikh baan ku leenahay. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulle Cawad ayaa sheegay in xildhibaan ahaan deegaanka la jiile uu ka hirgelin doono goob waxbarasho. aad iyo aad baan u faraxsanahay soo dhaweynta iyo marxabaynta gacmaha furan aad nagu soo dhaweyseen waana idinkaga mahadcelinaynaa. waxbarashadu waxay aasaas u tahay nolosha bini'aadamka. carruurteenna si fiican baa quraanka loo baraa. waxaan u nimid in aan kala hadalno in iskoolkan la furo ciyaalka yaryarna aad keentaan. iskoolkii waa la qalabaynayaa annagaa ballan qaadayna in la qalabeeyo. macallimiintii annagaa ballan qaadayna in la qoro oo ay la shaqaaleeyo. annaguna waxaan ballan qaadnay maamulkiinnii iyo odayaashiinnii iskoolka qalabayntiisana annagoon deegaanka ka laaban baannu qalabaynaynaa. macallimiintiina waa keenaynaa idinkana carruurtii waa laydinka rabaa. shirkadda Hormuud waxaan ka keennay ballanqaad cad madaxa ugu sarreeya ee shirkadda Hormuud in 22 deegaan oo kale ayaa idinka horreeyey. meesha ugu horraysa ee tower laga taagayo ay noqon doonto deegaanka la jiide. 20 nal anaa u keenaya oo ballan qaadaya kuwiina la haysta. Cabdirsaali Deele, warbaahinta SBC la jiile.